waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabii soo dhawaada, meel walba waa joogtaan. Soomaaliya soo dhawaada. Waa Cabdifataax Cabdi Yuusuf oo mar kale idinku soo dhaweynaya video cusub. Videogan waxaan rabaa inaan uga hadlo sida aad ku samaysan kartaan XM demo account si aad u tijaabisaan robotyada. Robotyada waa kuwaasaa meeshaas noo saaran, ifaan real iyo ifaan demo ayaa noo saaran. Waxaan rabnaa qof walba inuu tijaabiyo. Haddii robotka aan soo dhigo telegramka gudihiisa, qof walba inuu tijaabin karo ayuu u baahan yahay. Markaad tijaabinaysid waxaad u baahan tahay kombiyuutarkaaga inaad ku soo degsato terminalka brokerka la yidhaahdo XM oo MT4 ka ah. Sidoo kale account oo demahan inaad soo furatid si aad u tijaabisid. Marka si aan u tijaabino, waxaan samaysanaynaa account demo, sidoo kalena waxaan soo dejinaynaa terminalka ama MT4 ka XM account XM brokerka ayaan soo dejinaynaa. Waa isla arkaynaa sida aan u soo dejinayno. Okay, waxaan galaynaa browser ayaan soo furanaynaa. Browserka ayaa soo furanay. Waxaan ku qoraynaa xm.com. intaas ayaad qoraysaa, kadibna waxaa leedahay enter. xm.com haddii aad qortay kadib enter okay. Meeshaan waxaan u jeednaa view terminals soo saaran. Waxaan u jeednaa view terminals. Terminalada ama view platforms ayaa noo saaran. Platforms MT4 iyo MT. Waxaad u jeedaa meeshaan MT34, meeshaan waxaad u jeedaa MT35 hoos haddii aan u sugno. waa sii qaybsamaa. MT4 ka wuxuu u qaybsamaa isagoo lagu isticmaalayo computer, desktop, PC, isagoo lagu isticmaalayo Mac, isagoo multi terminal ah, MT4 web trader, Android isagoo ah, iyo MT4 Android tablet. Intaas ayuu leeyahay. Hadda waxaan rabnaa PC inaan ku isticmaalno. Midkan PC-ga ayaan kaligsiinaynaa. Ayaan rabnaa inaan adeegsano. Page-ka isaguna meeshaan waxaa saddex button waxay kala yihiin open an account, download iyo open demo account. Hadda waxaan rabnaa inaan download garayno terminalka, inaan download garayno platformka, inaan download garayno. Waxaan leenahay click downloadka ayaan ku dhufanaynaa. Downloadka wuxuu ku keenay boxkan hore ayaan u download gareeyay, marka sidaas ayuu waxaan u keenayaa. Laakiin waxaa ii dooran midkaas kore. Waxaan leenahay okay, sida caadiga wuxuu ku keeni doonaa boxkan ayuu ku keeni doonaa oo download haddii internet download ay isticmaalaysa. Haddii kale browserka lafsadiisa ayaa download leh, wuxuu ku keeni doonaa save ayuu ku keeni doonaa. Save ayaa leedahay. Start download haddii aan dhahay, isla markii waxaad ujeedaa wuxuu download garaynayaa terminalka XM ayuu download garaynaya. Wuu dhameeyey. Kadibna waxaan leeyahay soo dhigay. Okay, waxaan leeyahay dushiisa right click, kadibna waxaan leeyahay copy. Meeshaas waan iska xiri doonaa. Waxaan geysan doonaa meesha ay igu jiraan robotyada dhexdooda ayaan dhigan doonaa. Mar dambe ayaan ku shubi doonaa kombiyuutarka meesha. meeshaan demo account haddii aad rabtid furo. Marka waxaan ku dhufanaynaa mar kale open demo account ayaan ku dhufanaynaa. Waxaan rabnaa demo account inaan furano ayaan rabnaa. Okay, wuxuuna keenay markaa page-kii lasdiiwaangelinaya ama aad u baahan tahay detailskan, personal detailskan inaad buuxisid aad u baahan tahay.
marka ugu horeyso first name ayaad u baahan tahay inaad geliso, last name, country, city, waxyaabahaas dhan ayaad u baahan tahay, marka waad buuxinaysaa. Okay, marka wuxuu u baahan yahay in la buuxiyo jadwalkan ama personal detailskaas in la buuxiyo ayuu u baahan yahay. waa buuxiyey. Marka meesha koowaad waxaa ku qoran first name, waxaad gelinaysaa magaca koowaad, magaca labaad last name ayaad gelinaysaa. wadanka aad joogtid ayaa ka dooranaysaa meeshaas, Soomaaliya aad dooran, magaalada aad ka joogto Muqdisho ayaad qoraysaa. meeshaan waxaa ku qoran country code-ka, numberkaaga saxan ayaa meeshaan gelinaysaa. numberkaaga saxan haddii aad gelisid, account-kaaga numberka aad gelisid inuu iska qaato ayaa laga yaabaa. Okay, meeshaan email saxan ayaad gelinaysaa. emailkan waxay soo diri doonaan confirmation code. hadda markaad sign up markaad dhahdid, isla markii waxay kuu soo dirayaan confirmation code. waxay rabaan emailkan aagahayo in kale inay ogaadaan. marka confirm aad dhahdid, account-ka markaas ayay kuu soo dirayaan, markaas ayay ku siinayaan. Okay, email saxan ayaad gelinaysaa meeshaas. meeshaan haddana waxaa noogu jiro inuu saxan yahay iyo in kale. Okay, inuu saxan yahay. luqadda ayaa meeshaan ka dooranaysaa, waa furaysaa. hadda waxaa noo dooran luqadda English ayaa noo dooran. sidoo kale nooca aad rabtid waxaa jiro MT4 iyo MT5. haddii aad rabtid MT5 aad dooranaysa, haddii MT4 aad rabtid MT4. laakiin hadda robotka aan tijaabin rabno wuxuu ku shaqeeyaa MT4 aan dooranaynaa. meeshaan aan furaynaa, MT4 ayaan dooranaynaa. account-ka standard account ayaa noo dooran. nooc kale ayaa ku jiro, waa dooran kartaa haddii aad rabtid. meeshaan aad furaysaa. lacagta waxaa ka dooranaysaa US, waa lacagta doolarka. meeshaas leverage-ka waa meesha ugu sareeyo. meeshaan ugu hooseysa haddii aad furtidna waxaad dooranaysaa inta aad wax ku tijaabin rabtid, lacagta aad wax ku tijaabinaysa inta ay leeg tahay ayaad dooranaysaa. Okay, intaas kadib meeshaan hoose waxaa la gelin doonaa password ayaa la gelin doonaa. Okay, meeshaan waxaa gelinaysaa iyadana sidaan sheegnay passwordka waa geliyey. marka labo password isla leh ayaa laga rabaa. meeshaan passwordkana wuxuu leeyahay waa inuu udhexeeyaa xarfihiisa 10 ilaa iyo 15 xarfood waa inuu koobnaadaa. waa inay ku jiraan ugu yaraan hal xaraf oo weyn, hal xaraf oo yar, nambaro, waxaas ayaa shuruud u ah. marka passwordada waa geliyey, kanna soo saaray, labada password haddaysan islahayn uu calaamad guduudan ayuu keeni doonaa, wuu diidi doonaa. intaas kadib waxaan calaamadda saxda saaraysaa meeshaan ay ku qoran tahay I agree. kadibna open demo haddii aad dhahdid, isla markii wuxuu soo diri doonaa email ayuu soo diri doonaa oo dhahayo confirm your email address. kadibna waxaan leenahay okay, wuxuu leeyahay okay, emailka wuu soo dhacay. waxaad ku dhufanaysaa buttonka guduudan ee emailka dhexdiisa ku jiro. wuxuu leeyahay confirm email address. buttonkaas haddii aad ku dhufatid, isla markii congratulation ayuu kusoo dhihi doonaa. okay, wuxuu leeyahay congratulation on opening an XM account. kadibna wuxuu isiiyey MT4 ID ayuu isiiyey. MT4 ID-ga waxaan gelin doonaa markaa meeshaan ayaan ku qori doonaa MT4 ID-ga ku jiro. meel hoose ayaan ku qoran doonaa. MT4 ID-ga isiiyey wuxuu noqday 25. wuxuu noqday MT4 ID-ga 25. MT4 ID-ga uu siiyey waa 22 51 51 90. wuxuu isiiyey 22 51 51 90. intaas ayuu siiyey. marka midkan waxaanu isticmaali doonaa inaan ku tijaabino maxaa la yidhaahdaa terminalkeena ama terminalka XM inaan ku tijaabino ayaanu isticmaalaynaa oo robotkaas ifana aan ku load garayno. videogan kaliya waxaan ugu talagalay inaan soo dejiyo setupka ama platformka XM brokerka la yiraahdo iyo inaan soo samaysto demo account. intaas kadib videogan meeshaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. videoga xiga ayaa waxaan arki doonaa sida loogu shubo computerka terminalkan ama platformkan XM, iyo sidoo kale waxaan arki doonaa account-ka sida loogu xiriiriyo terminalka iyo waxaa la yidhaahdaa robotyadan sida loogu install gareeyo terminalka gudihiisa ayaan isla arki doonaa. markaas habay soo dhawaada videogan. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waa inoo videoga xiga iyo
installationka robotka ee lagu install garayn doono terminalka gudihiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalin wanaagsan.